dowladda Qatar ayaa shaacisay madaxweynaha Maxamed Abdullaahi Farmaajo oo saacadaha soo socda ku wajahaya dalka Qatar. warbaahinta Qatar News Agency ayaa sheegtay in madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo maanta oo Sabti ah ku tagayo safar dalkaasi. sidoo kale warbixintan waxay intaasi ku daraysaa in maalinta xigta ee Axadda ay ballansan yihiin oo Farmaajo iyo la kulmi doono amiirka dalka Qatar Sheekh Tamiim bin Xamed. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo wafdi hogaaminaya ayaa Sabtida maanta gaaraya dalka Qatar. amiir Sheekh Tamiim bin Xamed ayaa maalinta Axadda kula kulmi doona madaxweynaha Soomaaliya Emiraton Tiwan iyagoo ka wada hadli doona xiriirka labada dal iyo sidii loo taageeri lahaa loona horumarin lahaa iyadoo ay u dheer tahay arrimo dhowr ah oo quseeya danaha guud ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Qatar News. dowladda Qatar ayaa waxaa aad u taageertaa xukunka madaxweyne Farmaajo waxaana la sheegay inay si buuxda ay u doonayso in dib loogu doorto madaxweynaha Soomaaliya. marar badan ayuu madaxweyne Farmaajo sidaan oo kale safar ku tagay dalka Qatar iyagoo la kulmay amiirka iyo madaxda kale ee ugu sarreysa dalkaas. mucaaradka Soomaaliya ayaa iyaguna aad u dhaliila qorshaha Qatar ee Soomaaliya oo aan muuqan mid dhexdhexaad ah sida ay qabaan.